كورن هذا ركتوقف وحو أركب عنا سدون غنيا قفك هالكا مري كدا فدع عنا وحو إيش يسوي حق بطبع هدول لقى كور هذا رنسا ده هو واردب واحد هذا إعلام كقف كوا إدمان كورد عيب اللمدة بهالكا أنت تفرتابط وحد ركتبه وطاونسا قشن إيه قرن إيه وحفي عن إيه وحد ركتفرتم بتقوة ده وحد لمن تهيب إلى قف أنتو دبده وبحول بطاقية قف بني آدم وحول بطاقية سدون غنيا إعلامكم مركا هو خطر وحيلاقي سموه سيدي شركة وقولي بدنيين أيا وحل آخرية وحل دقيستانا مسكحة أي دبقوا هيان قفكو سيدو فكريو يسيدو وحو أركيو يسيدو وحو قيمينيو يمشي وستاقيا وحي كحريهين وحاو داوضية وحاو مغلو قفك بني آدم كيف يدادان دي مسكحدو محي أنا لا يسكريسا انت دمال عدلا فريساتو وحلا يسكبا أنا لا يسكريو مسكحدو وحي رقرقتا وحي مقشي أما وحي أركتي وح خير لي وح وناكسن هداد مقشو أركتي إيادي كفكريسا وضيسا waxaad maqashiyo waxaad aragtay waxaan khayrba ku jirin haduu yahayna qashinkaasaad wadwadaysaa ilaa dhaqankaagu isbedelo wax waliba isbedelo ma u malaynaysaa kuwa bahalladan sameeya social media kuwa sameeya waxa kamid ah engineer la yiraahdo attention engineer-ku wuxuu ka shaqeeyaa waa muhandisiya liintibaah baa la yiraahdaa waxay daraaseeyeen oo barteen qofka bini aadamka sidee aqligiisa loo xadi karaa saad u qaban kartaa marka waxay ka fakaraan website-kiisa hadaad gasho mesela Facebook hadaad gasho sidii aanad uga bixi lahayn Facebook baad shiday waxa lagu talagalayaa saacad laba saacadood si aad ugu jiri lahayd ragba mushaharada ugu badan ee dunida la qaato ku qaata kuwa rakamidi gurigooda waa ka mamnuuc in internet uu galo hadda waa ka adiga ku dajinaya in aad bahalkan mudminka ku noqota isagu wuxuu ogyahay wuxuu sameeyay wuxuu ogyahay dhibta uu bini aadam ku hayo sida awgeed buu wuxuu ka mamnuucay gurigiisa inuu internet ba yeesho ama Facebook iyo waxa kale inay soo galaan Facebook baan ku lacag qaataa imka hadaad bahalkan furto waxba daawatay laba boqol oo waxay aad daawatay la noocan ba marka labaad furto ku soo dhacaya adigu ma dalbanin ma aha asxaabtaadi dadku ku register gareysana ma aha dadka la xiriiri jirtay ma waa mujarrad inaad eegtay waxa yararka Soomaalida qayliya mid kamid ah eegtay waxa qayliyo dhami way soo galayaan halkaaga adigu aan garanayn ba website-kooda ba garanayn waayo design engineers ba ka dambeeya ah sidii lagu qaban lahaa maxaa daawatay waa in lagu hayaa marka wixii aad daawatay ninkani muxuu ka helaa waxaad ka hesho dhan nin nimanka social media ka shaqeeyo cadaana ayaa nin sheekho wadaadii wuxuu ugu yiri way company isugu yimaadaan shaqo ayaan idhibu yiri war anaga kaayaga horta ma eegtay kaayaga maxaa ku jira markaas wuxuu ugu yiri dakiin aanu Soomaalida bahladooda maan eegin social media maan eegin laakiin hadda laba cashay siisabuu waan ku keeni karaa Soomaalida social media heeda laba cashayga ma qanaabuu yiri dadana uu soo noqday wuxuu yiri idinka waxa idinku badan dadka madaxa ka xanuunsanaya wanan cad oo aan Soomaali ahayn oo Soomaali aqoonin laakiin markuu translate gareeyo baaday wanan cilmiga aqoontan leh wuxuu yiri waxa daawataan waxay u badan yihiin dad aad moodayn wuxuu dhimayeen TikTok ba foraysa buu leeyahay gabar qaawan oo si socoto soo waxna sheegi maysa buu yiri si soconaysa marka ma qof waa la miyaanay buu leeyahay ilaa waxna kuma sheegin intay marada dhigato bay si socotaa buu leeyahay waxna kama hadlayso marka xataa umamka kale markay eegaan waxay u soo baxaysaatan intii fududayd ama dhiiranayd ama xumayd ayaa cilaamka inoogu jirta intii deganayd ama aqli lahayd ama aqoon lahaydna waa aamusayeen ama mabalahaba Facebook-yadan iyo waxa la sheegaya malaha saadaradeed inaga dhankeena siba Soomaali markaynu nahay iclaamkeenu wuxuu u badan yahay xumaha iclaamkeenu wuxuu u badan yahay
xumo iyo taafih waxaan qiimo lahayn.